Bismillahirrahmanirrahiim. Kusoo dhawaada kanaalkeena Som Universe. Maanta waxaan ka hadlaynaa xigmadooyin yaryar oo ku saabsan ereyada, kuwaasi oo saameyn yeelan kara. Hadal waxa uu ammaan yahay inta aadan oran. Afka hadduu ka soo baxo, adi uma arimisid. Abwaan Maxamed Cali Kaariye ayaa sidaas yiri. Sirta caajisnimada waa in la sheego wax walba. Hal erey oo naxariis leh ayaa bedeli kara qof maalintiisa oo dhan. Si taxaddar leh ula tacaal, waayo ereyadu way ka awood badan yihiin bambooyinka atamka. Ereyada wanaagsan waxay noqon karaan kuwo gaaban oo sahlan in lagu hadlo, laakiin dhawaqoodu waa kuwa aan dhammaad lahayn. Carabku lafo ma leh, laakiinse waa uu xoog badan yahay inuu qalbi jabiyo. Haddaba hadalkaaga ka digtoonow. Ka digtoonow waxaad tiraahdo. Waxaad ku odhan kartaa wax xun 10 ilbiriqsi gudahooda, laakiinse 10 sano kadib nabarradii weli waa jiraa. Ha isku darin ereyada xun iyo niyadaada xun. Waxaad heli doontaa fursado badan oo aad niyadaada ku beddesho, laakiin ma heli doontid fursad aad ku beddesho ereyadaadii aad ku hadashay. Ha dhayalsan awoodda hadalka. Hadalku wuxuu dhaqaajiyaa qalbiyada, qalbiguna wuxuu dhaqaajiyaa addimada. Laf jabtay way bogsan kartaa, laakiinse nabarku ereygu waa sii waaraa. Ereyadaadu awood bay leeyihiin. Ku hadal ereyo naxariis leh, kalgacal leh, oo wanaagsan, oo kor u qaadaya dhiirigelinaya nolosha. Intaas ayuu ku egyahay muuqaalkeena. Intaan muuqaalkan mid lamid ay ku kulmi doono. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.